madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo maanta qasriga madaxtooyada ee Somaliland kula hadlay warfidiyeennada waxa uu markii ugu horeysay ka hadlay xanuunka coronavirus oo dunida si weyn ugu fidaya sidoo kale madaxweynuhu waxa uu sheegay tirada dadka soo galay gudaha Somaliland isla markaasina ka soo gudbay xuduudaha dhanka bariga badda iyo madaarada isagoona sheegay in guud ahaan baaritaan lagu sameeyay isla markaasina aan laga helin wax xanuunkan adduunka ku faafay فايروس إلهي نوما كانوا لكن أدوك ضد كي كنا ولا مالك استاذ شو أدوك ده على كيسة ورور موقع أموري يا عبسي تا عالم كانوا كلام ده عدو ولا بيتال كيد هي تلذذ هي اسمه قال كيد أي كيد يرجع إن أقول تا أدوك كانوا كلام ده إلهي مهدي ما أنت دلكين wax uduruhu ka jira ma jiro saaka shalay ayaa tijaabada dadka wixii la baaray tiradooda ardii sheegi doonaa muddo ilaa maalintii aynu sameynay taxadirka ee airportka aynu tagnay ayna goobaha dalka laga soo galay waa weyn dalkeena meelo badan baa laga soo galaa xuduud weyn baynu leedahay waddo waliba way furantay laakiin meelaha socodku u badan yahay marka la qiyaasay ayay wasaaradda caafimaadku waxay geysay in la kantaroolo xumadda loo filaayo ciddaas inay cudurkaa qabto oo adduunka o dhan u istaandara markaa maalin walba waxay soo gudbiyaan dadka waddadaas soo maray waddooyinka ah iyo tiradooda taasi waxay noo sheegaysaa dee wixii meel kale ka soo galay ee lug inagu soo gala ilaahay manu ka magan gelinaa inuu naga qabto laakiin meelaha laga soo galo inuu ka fayoonahay gudaheennana anaga waxba ka dhicin ilaa imika meel laba rug caafimaadba shalay maqribkii wuxuu noogu dhacay tukaraq waxa la baaray oo soo maray 109 qof dhammaan way caafimaad qabeen wax laga shaqeeyo maaray yube waxa la baaray 10 qof oo soo maray controlkii ay yaaleen baaristu way caafimaad qabeen dhahar 9 qof baa soo maray way caafimaad qabeen 9 qof wajaale 540 qof baa ka soo galay dhammaantooda caafimaad qabeen wax lagu shaqeeyo lagama arag berbera waxaa ka soo gala 19 qof oo u badan kuruuga maraakiibta baashar kama soo gelin waa caafimaad qabeen markii la baaray lawi cado 138 qof baasan jara wax laga shaqeeyo lagama arag cigaal airport waxaa ka soo galay 262 qof wax laga shaqeeyo lagama arag tiradaas shalay galabtii waago gobolku noogu dhacay ilaa imikana wixii soo maray xadka jooga tiradoodu waa la soo tabinayaa wali wax shaki u kaysamay taxadirka waxaanu soo oranahay in isugu xidhno warka ilaa goobta ilaa madaxtooyada ilaa wasaaradda dalanku inuu soo dhawaado marka cadsabeyn hore lagu sheegay dalkeenu isu furan yahay cabsiyada qabnaa inuu iska wada eegana arinta marka ilaahay mahadi oo noqdo waxaan soo qabnaa warwar adduunka oo dhan qabo gobolkeena ka soo dhawaaday doorto waxaan magacaabay 5 wasiir oo hogaaminaya arinta oo shaqo qaran 5 wasiir oo kala aasaytiin oo hogaaminayso caafimaadku dakhliga waxbarashada awqaafta iyo warfaafinta inta kalena mudane Biixi waxa uu bulshada Somaliland culimada iyo warbaahinta ugu baaqay inay ka shaqeeyaan dhanka wacyigelinta isagoona bulshadana si adag ugu dardaarmay inay qaataan fariimaha uga imanaya wasaaradda caafimaadka ee Somaliland hadda waxa loo baahan yahay kamaaran waagi nolosha iyo caafimaadka si inuu ilaalinay in la isku waafajiyo waxaan doonayaa inaan u sheego ummadda Somaliland iyo dadka oo dhan wixii deganba inaynu maanta ku soconayno awaamirta wasaaradda caafimaadka laga bilaabo imika maalin walba guddiga waxa soo saaraysaa war isugu jira wargelin waano iyo haddii loo baahdo amar iyo haddii loo baahdo in tallaabo sharci laga qaado cidii fulmay oo ku saabsan caafimaadka inta waxaan dhaafay 2 qolo ayaan fariinta u soo mareen maanta culimadu warka ay direen waa mudooba qolna waa saxaafadda maanta dalku ciidanka quru haysto ee cudurka wax ka qaban kara ee dagaalka geli kara waa saxaafadda iyo isgaarsiintu
hadalkani madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ku soo beegmaya maalin kadib markii uu magacaabay guddiga heer qaran ee u diyaar garowga iyo ka hortagga xanuunka coronavirus. Idris Maxamed Caynaan Goobjoog Hargeysa.